sidaan oo kale markii aad kor ka dheehato muuqaalka guud ee magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxa durbamaankaaga ku soo dhacaya meeshan kama jirto wax bandoowa balse waxa shaqeynaya oo ay dawladda Uganda fasaxday gaadiidka sida qaaska ah loo leeyahay ee gawaarida raaxada ah oo lagu raaci karo ilaa iyo 3 qofood oo uu ku jiro darawalka iyaga oo wata maaskiga. ugu dambeyntii wakiilka gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee MAQSO Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka ayaa waxaan wax ka weydiinay ardayda iyo caqabadaha xilligan bandowga ay wajahayaan. bismillaahir marka hore aad u mahadsantiin bahda Som News TV iyo teamka Shaasha Production sidoo kale duceysana runtii waan idinka mahad celinayaa shaqada wanaagsan ee aad u haysaan bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan wadanka Uganda oo ay ardaydu qayb ka yihiin. sida la soconaba xalay madaxweynaha wadanka Uganda waxa uu jeediyay khudbadiisii 15aad runtii iyadoo wax badan oo la filanayay ay isbedeleen tusaale ahaan oo kaleento waxa la rajaynayay oo ardayda ay ka warsugayeen in la fasaxi doono goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskuulaadka laakiin taasi ma aysan dhicin nasiib darro dib ayaa loo sii dhigay si gaar ah waliba waxa jirtay in madaxweynuhu uu horay u sheegay in ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha dhameynaya oo in loo ogolaan doono imtixaanaadka kama dambeynta ah ama final examska in ay galaan marka taasi naftirkeeda meesha ay ka sii baxday marka waxaad moodaa xoogaa in ardaydu ay walwal ka qabaan in semesterkan guud ahaanba uu gaab ku yimaado waadna dareemi kartaa markuu qofka arday uu yahay uu dal aanan dalkiisa ahayn uu wax ku baranayo arday markuu halkan imaanayo inuu qorshe ku yimid intaas sano ba halkaas joogaysa waxay xagga nolosha laakiin hadda waxay noqonaysaa semester wax yar ma waa 6 bilood marka waxay noqonaysaa qofkii hadii gaabkaas uu ka arday ahaan lagu imaado in xoogaa caqabada ay noqonayso laakiin si kasta oo ay tahay haddana mar walba waxa muhiim ah in runtii dadka martida loo yahay runtii ama dawladda martida loo yahay in la qaata awaamirta iyo waxyaabaha ay soo saarayaan. Cabdi Xakiim Xasan Axmed Cabdi Xakiim duceysane Somali News TV.